السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودyaal kusoo dhawaada wararkii ciyaaraha Bulsho Sports TV qodobada idinkaga waxaa kamid ah Manchester United ayaa fasaxaysa Jong iyo Bishop. Roma ayaa ka fiirsanaysa inay u dhaqaaqdo Alex Telles. Tottenham ayaa heshiis la gaartay Conte. Crystal Palace ayaa diiradda saaraysa Gomes. Man United oo isha ku haysa dalabka Suleymana. Intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkii ciyaaraha haatan ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan. Manchester United ayaa fasaxaysa Jong iyo Bishop. Red Devils ayaa horay u ogolaatay inay fasaxdo Tahith Jong iyo Nathan Bishop iyadoo kuwa kale la filayo inay dhawaan raacaan. Ole Gunnar Solskjaer ayaa qirtay in Manchester United ay xayiraad saari doonto heshiisyo amaah oo u badan xagaagan iyaga oo isku dayaya inay daqiiqado muhiim ah ka helaan daayarka mustaqbalka leh. Red Devils ayaa horay u ogolaatay inay Tahith Jong u ogolaato inuu saxiix la qaato Birmingham halka Nathan Bishop lagu wado inuu ololaha 2021 ilaa 2022 ku qaato Mansfield midkoodna wali kama tagin Old Trafford iyadoo Solskjaer uu doonayo inuu sii haysto safkii tababarka xilli ciyaareedka sida uu macquulsan ka hor inta aysan xidiga Euro 2020 kadib ugu soo biirin kooxda. Roma ayaa ka fiirsanaysa inay u dhaqaaqdo Alex Telles. Faafahintan warkan waxa inoo hayso Muno Ismaan Cali. kooxda caasimada ka dhisan ayaa la gariiraysa warka ah in daafaca Leonardo Spinazzola uu goramada ka maqnaa doono inta badan xilli ciyaareedkan iyada oo dilaacay jilibka Achilles. Calcio Mercato ayaa sheegay in tababaraha cusub ee Roma Jose Mourinho uu Telles ka eegi doono kooxdiisii hore ee United si uu bedel ugu noqdo. Xidig reer Brazil ayaa dooqa labaad ee kooxda Man United maadaama uu ka dambeeyay Luka Shaw oo ah kooxda ugu fiican. Heshiis amaah waqti gaaban ah ayaa ku haboon labada dhinac maadaama Spinazzola loo qorsheynayo inuu soo kabsado Janaayo ama Febraayo. Tottenham ayaa heshiis la gaartay Conte. Faafahinta warkan waxa inoo hay Xasan Cumar Xuseen. Tottenham ayaa heshiis la gaadhay Sevilla oo ku saabsan saxiixa Julius Konda sida uu sheegayo De Marzio. Spurs ayaa diyaar u inay bixiso 30 milyan oo ganiil laga siinayo kooxda reer Spain 22 jirkan halka Sanchez uu ku jiro heshiiskii ugu dambeeyay laakiin ciyaaryahanka wali ma uusan gaarin go'aankii ugu dambeeyay ee ku aadanaa dhaqaaqiisa xiga. Konda ayaa sidoo kale aad loola xiriirinaya Real Madrid kadib markii uu door muhiim ka ciyaaray Sevilla oo u dhaqaaqday kaalinta afaraad ee La Liga sanadka 2020 Arsenal ayaa ku dhow xidigaha Awar iyo Lokonga. Faafahintan warkan waxa inoo haya Cabdirasaaq Cabdi Ibrahim. kooxda kubadda cagta Gunners ayaa muddo dheer la xiriirinayay labada xidig iyadoo Mikel Arteta uu isha ku hayay isbedel weyn uu ku sameeyo kooxdiisa xagaagan sida laga soo xigtay The Sun. wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ee Arsenal waxay u muuqataa in horumar la taaban karo ay ku talaabsato kooxda iyadoo baacsanaysa Awar iyo Lukanga ayaa si fiican ula dhacay Anderlecht wuxuuna u muuqdaa inuu noqon karo saaxiibkiisa khadka dhexe ee daafaca ku wanaagsan Thomas Partey halka Awar uu yahay ciyaaryahan hal abuur leh oo buuxin kara booska ay ka maqan yihiin Mesut Ozil, Martin Odegaard iyo Dani Ceballos. Crystal Palace ayaa diiradda saaraysa Gomes. Faafahinta warkan waxa inoo hay Xuseen Cumar Xuseen. Crystal Palace ayaa aqoonsatay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester City Gomes inuu yahay bartilmaameedka suuqa kala iibsiga sida ay qortay Euro Sports. tababaraha cusub ee kooxda Patrick Vieira ayaa doonay inuu xoojiyo dooqyadiisa bartilmaameedka. Pep Guardiola ayaa laga yaabaa inuu isku diyaariyo inuu 20 jirkan amaah uga tago Etihad Stadium. Gomes ayaa City kaga soo biiray Paris Saint-Germain sanadkii 2018 wuxuuna metelay France Euro-ga 2020. Man United oo isha ku haysa dalabka Suleymana. Faafahintan warkan waxa inoo hayso Muno Ismaan Cali. 19 jirkan weerarka ka ciyaaraya ka dhaqaaqi kara kooxda FC North Zealand xagaagan iyadoo Ajax, Lyon iyo Rennes ay ka mid yihiin kooxaha isha ku haya horumarkiisa. mucjisada reer Ghana ee Kamaluddin Suleiman ayaa qiimeynaya dooqyadiisa ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga xagaagan iyadoo Manchester United ay ka mid tahay kooxaha xiiseynaya daayarka. 19 jirkan oo loola barbar dhigay Neymar ayaa soo jiitay indhaha Yurub oo dhan laakiin wali go'aan kama gaarin mustaqbalkiisa. Suleiman wuxuu wacdaro ka dhigay kooxda reer Denmark ee FC North Zealand isagoo soo maray akademiyada xaqa u yeeshay riyada dalkiisa hooyo wuxuuna soo jiitay indhaha kooxaha sida United, Ajax iyo Reds.
intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa wararkii ciyaaraha bulsho Sports TV waa anigoo ah Qamar Maxamed Cumar sidaas iyo nabadgelyo.